halkani waa gobolka Doole ee bariga Ogaadeen ama Soomaali Galbeed. Magaala madaxdiisu waa Wardheer, waana dhul qurux badan oo siman isla markaasina ciid guduuda. Cimilo ahaan Wardheer waa dhul dhexdhexaad ah, mana aha kulayl daran oo hanfigu ku leefayo, mana aha qabow daran oo ilkaha aad isla dhacayso. Xilli roobaadka waa meesha ugu quruxda badan guud ahaanba dhulka Soomaalida, iyadoo suugaanyahanada Soomaaliyeedna waqtigii berisamaadkii ee suugaantu murtida lahayd ay halhays u ahaan jirtay. Waa kii lahaa Cabdi Tahliil Warsame, wacan ciidi loo bogay herarigii wacnaa iyo adwalwala aragtideeya Wardheer ku soo bara. Mar kale Xasan Aadan Samatar isna waa kii isku maaweelinayay heesaha Wardheer baan ku habaa naftayda. Magaalada Wardheer waxay ka kooban tahay 7 degmo, waxayna kala yihiin Danood, Daratoole, Lehel, Cub, Bookh, Galaadi iyo Galxamar. Waxay caan ku tahay ceelasha dhaadheer, iyadoo qiyaastii 12 kiiloomitir ay waqooyi bari ka kulaalayso qalcadii ugu horeysay ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan uu ka guuray 1910. waa goobta taariikhiga ah ee iyaduna ceelasha dhaadheer leh magaalada Walwal. taasi waa markhaatiga nool ee deegaankeena aan ka sheekaynayo inuu yahay hooyada iyo aabbaha halgankii Soomaaliyeed. haddaba aan u soo noqdo nuxurka muuqaalkaygan inaan diyaariyay igu kalifay. magaalada Wardheer waxaa weli ka muuqda raadadkii ay kaga tageen halgamadii kala dambeeyey ee Soomaalida ee isaga caabinaysay cadowga dhuldoonka ee shisheeye, caddaan iyo madowku doonaba ha ahaadee. markhaatiga kale ee nool ee indhaha ku qabanayaan waa kaarayaasha tobanaanka gaadhaya ee daadsan furmihii lagu burburiyey xilliyadii dagaaladii Soomaaliya iyo Itoobiya ku dhex maray dhulkan. kadib markaan tegay soona indheeyey kaarayaashaasi, waxaan go'aansaday inaan raadiyo taariikhda dagaalkani iyo goobtan fiintu ka ciday. dagaalkani ma aha midkii caanka ahaa ee 77 sida uu ii xaqiijiyey Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo qayb ka ahaa dagaalkani. wuxuuna ii sheegay Cabdikariin in dagaalkani dhacay 1980. waxa uu socday dagaalkani muddo kooban sida uu Cabdikariin ii xaqiijiyey. ciidamada Soomaalida ee xadka ka soo ruqaansadayna waxa ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan kuwii xabashida ee Wardheer deganaa, ayagoo gebi ahaanna qabsaday, isla markaasina dib ugu laabtay xeryahoodii. dagaalkani ma ahayn mid caan baxay isla markaasina gobolada kale ee deegaanka ka dhacay, laakiin waxa uu ahaa mid khasaaro badan oo muddo kooban socday. burburka kaarayaashuna indhaha ku qabanayaan. kadib muddo kooban oo Wardheer mar kale xoog lagaga xoreeyay gumaysigii xabashida, ciidamada geesiyada Soomaaliyeed waxaa amar lagu siiyey inay isaga soo baxaan magaalada. ujeedka dagaalka laga lahaana ilaa hadda ma cadda. waxaa xusid mudan in waqtigaasi magaalada Wardheer ay ahayd difaac adag oo Amxaaradu waxay hub iyo tiknika ay haysatay isugu geysay, isla markaasina ka dhigatay saldhiggeeda ugu weyn ee bariga. nasiib wanaag, geesiyadii Soomaaliyeed ee gabashada aqoon waxay ugu suura gashay inay gelgelin ka dhigaan goobtan difaaca adag Itoobiya ka samaysatay muddo ku siman 7 gudihii, iyagoo suuro geliyey ilaa iyo maanta aan joognay in carruurta heer Wardheer ay ku ciyaaraan burburka kaarayaashii iyo tiknikadii ay sida xaqdarrada ah Itoobiya u soo dhoobtay waqtigaasi. sidaan horey u sheegayba, Wardheer mar kale ayay ka xorowday gumaysigii madoobaa ee xabashida, iyadoo Ilaahay u sababay gacanta geesiyada Soomaaliyeed, laakiin mar dambe way ka soo baxeen. halkii ayayna Wardheer uga bilaabatay nasiib darro kale. waxaan joogaa magaalada Wardheer. halkana waa kaamka Amxaaradu deganaan jirtay. waqtigeygii ugu dambeysay waxaa ooli jiray kaarayaal aad fara badan iyo gaadiid kale, kuwaasoo ku burburay xilligii dagaalkii Soomaaliya ee Wardheer. dagaalkeedu ma aha ku hadda soo bilowday iyo gobolka Soomaali Galbeedba, ma aha ku shalay iyo maanta aha, mana aha ku shalay berri iyo bari dambe dhammaan doona. kumanaan iyo boqolaal gaadiid iyo kaarayaal ah ayaa halkan ooli jiray. halkan waxaa ku taalla xabad kaarahan dhuuntiisa ku dhacday, halkan ay ka baxday, ku kale halkaasoo iga muuqdaa, dhowr kale xerada dhexdeeda iga muuqata oo qolo maleeshiyaan degan yihiin.
halkaas kuwa kalaa ka muuqda waa inta hadda hadhaayadiga ka soo hadhay berihii inta badan waa la googoostay laakiin muhiimadaydu waxaa weeyaan inaan idin tuso meeshan hoog iyo halaag badan in loo soo maray oo dad badan ay ku dhammaadeen way ciid qurux badan tahay oo way iska fiican tahay in la iskaga dalxiiso laakiin haddana xusuusaha ku duugani waa kuwa ku qiiro gelinaya markay xabaddu kaarahan dhuuntiisa saa u gelaysay imisan nin oo Soomaali ah ama imisan nin oo dhulkan u dagaalamaysay aad u malaynaysaa inay xabaddooda saa jirkooda inay saa u gashay waxaan u malaynayaa inaysan hadda xisaabsanayn laakiin annagu markasta xusuustoodu waxay ku nooshahay qalbiyadannada waana halgamayaal xusan jannadii firdawsana allah ka waraabiyo dad badan oo gacanta cadowga dartii dhulkan ciidan cas ugu baxayna way jiraan xaggan kaaraha igu soo qaba dhankan igu soo qaba waraa meeshan binaha waa laga jiidi jiray aan maray intii aan ku guda jiray barnaamijka duubidiisii ayaa waxaa si kediisa hal mar u dhacday in 3 qof oo ku sugnayd goobta aan ka duubayay muuqaalada markii aan dib isu fiirinay dhammaantaya ay gacanta Itoobiya ku baxeen aabayaashano hadal yar oo kooban oo na dhex maray ayaa u dhignaa sidan waxaanse ka cudur daaranayaa inaanan xusi karin labada xubnood ee kale ee ila socday magacyadooda iyo aabayaashood sababa amnigooda la xidhiidha laakiin anigoo ah barnaamij daadihiyaha magacaygu waa Guuleed Ibraahim Alifle waxa uuna aabahay ku shahiiday dagaal uu la galay ciidamada Itoobiya 1999kii halkaasi oo uu ka tirsanaa jabhadda xoreynta Ogaadeniya ee ONLF isla markaasina uu ahaa abaanduulaha ciidamada jabhadda ONLF waxa uuna ku shahiiday magaalo la yiraahdo Qamuuda oo ka tirsan gobolka Wardheer haddaba aan idin kala baxo hadalkiina dhex maray dhalinyarada aan goobtaasi ku wada sugnayn ها والله بلا وين كله هوريين صدحدينا waxaan raadishay habayaashi nimankaasna nabadna dhex maray nadax marimays nabadina nadax marimays kaarayaashii iyo beebayaashii iyo teknika noocyo kala duwan leh oo ay ku dagaalamayeen ciidankii Soomaaliya ee dagaalkii 77 iyo ciidamadii Itoobiya ee sida gardarrada ku joogay geeyigan Soomaaliyeed raadka halkan ka muuqday waa mid taariikhda marka dib u celiso xusuus badan kugu reebaya magaalada Wardheer waxa oo la jiray kumanaal kaarayaal ah iyo beebayaal noocan oo kala dhamaantood hadda waa la gurtay oo waa la jarjaray oo bira ahaan baa looga ganacsadaa laakiin waxay ku tusinaysaa raadka taariikheed ee ay Wardheer ku leedahay dagaaladii gobonnimo doonka ahaa ee dhulka Soomaali galbeed lagu xoreynayay ma qiyaasi kartaa marka kaalayaashan ay sidan u baaba'ayeen inta naf wiil Soomaaliyeed ku baxday ma qiyaasi kartaa inta hanti Soomaaliyeed ku baaba'day ma qiyaasi kartaa inta hooyo Soomaaliyeed ku gablan ma qiyaasi kartaa inta hooyo Soomaaliyeed ay asay iyo agoon la kulantay ugu dambeyntiina waxaynu halkaasi ku soo gabagabaynaynaa taariikh halgameedka magaalada Wardheer ee ku taala bariga dhulka Soomaali galbeed haddii muuqaaladani ku cajabiyeen fadlan like iyo share ta ka hilmaamin si ay dhiirigelin ugu noqoto mahadsanidin